Assalaamu calaykum. Soo dhawow walaal. Weli ma isweydiisin meesha ay ka imaaday asal ahaan koofiyadda qalin jebinta? Waa warbixin aan maanta uga hadli doono meesha ay asal ahaan ka imaaday koofiyaddan qalin jebinta ama waxa loogu yeero graduation hat ama square academic cap ee nala soco. Koofiyaddan qalin jebinta iyo dareeska cabaayadda madow waxay astaan rasmi ah ka noqdeen xaflad kasta oo qalin jebin jaamacadeeda. Tani ayaa ah bilowga aas-aaskii jaamacadaha reer Yurub ee gacanta ku hayeen wadaadadii kaniisadda qarnigii 12aad ilaa iyo qarnigii 13aad. Marka hore, inta aan mowduuca u gudagelin, waxaa jiro aragtiyo dhowr ah oo isdiidaan oo la xiriira meesha ay asal ahaan ka imaaday koofiyaddan qalin jebinta. Inta aan gudagelin barnaamijka, haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysay, taabo badhanka subscribe-ka. Haddii aad tahay saaxiib hore, noqo dhiirigeliye, taabo laagta, siina sheer garee. Mahadsanid. Aan gudagalno mowduuceena. Aragtida koowaad waxay dhahaysaa dharka madow ee cabaayadda iyo koofiyaddan qalin jebinta waa astaan ama calaamad lagu garan jiray wadaadadii Kaatooliga ahaa ee Nasaarada marka ay gaaraan darajada sare. Waxaa dhaqan u ahayd wadaadadii kaniisadda qarnigii 14aad ilaa iyo qarnigii 15aad. Markuu ardayga dhammeeyo waxbarashada dhanka kaniisadda, darajo sarena ka gaaro kitaabka Injiilka ama Baybalka, uu ku noqdo raahib, in uu ku libisan jiray dareeska cabaayadda madow iyo koofiyaddan qalin jebinta. Aragtida labaad waxay leedahay sida laga soo xigtay Jaamacadda Columbia, dareeska cabaayadda iyo koofiyaddan qalin jebinta waxay ahaayeen uniform ay xiran jireen ardayda muddadii uu socday dagaalkii sokeeye inta ay ku sugan yihiin goobtooda waxbarasho. Sidoo kale, waxaa la leeyahay cabaayaddan iyo koofiyaddan waxay ahaayeen dhar ay ardayda kaga gaashaami jireen qabowga daran, maadaama xilligaas dhismayaasha goobaha waxbarashada aynan lahayn nidaamyada mukeyfyada ee diirimaadka keena. Aragtida saddexaad waxay leedahay mid ka duwan kuwii hadda ka soo sheekeynay, oo waxayba dhahaysaa koofiyaddan qalin jebinta waa aalad shaqaalaha dhismayaasha ka shaqeeya ee u isticmaali jireen inay ku qaadaan shamiitada iyo carrada. Xariga ka laalaada koofiyadda muxuu macno ahaan ka tarjumayaa? Xarigan ka laalaada koofiyaddan macno ahaan wuxuu ka dhigan yahay ayaa la leeyahay in lagu kala saaro darajooyinka qofka, maadaama darajo kasta ay leedahay midab u gooni ah. Maxaa ku kalifa ardayda in ay koofiyadda kor u tuuraan? Dhaqanka noocaani ah oo koofiyadda kor loo tuuro ayaa wuxuu soo bilaabmay sanadii 1912, waxaana la rumaysan yahay markii ugu horeysay inay bilowday jaamacadda Annapolis ee waddanka Mareykanka, halkaas oo markay ardayda ka qalin jebiyaan jaamacadda oo koofiyadooda kor u tuuri jireen. Xilligaas kadibna ay noqotay dhaqan ay raaceen dugsiyada dhexe iyo kuwa sare iyo weliba jaamacadaha oo idil. Ugu dambeyntii, waxa aan ku soo gunaanudayaa hal qodob oo muhiim ah. Muslimiintii Andalus joogtay xilligaas marka ay qalin jebinayaan inay astaan u ahayd in kitaabka Qur'aanka Kariimka madaxa saaran jireen, iyagoo akhrinaya qowlka Allah subxaanahu wa tacaala, wa fawqa kulli dii cilmin caliim. Laakiin arrintaas inuu jiro wax daliil ah ama xaqiiqo ah uma hayno. Waxaan leenahay Allahu aclam, wabillaahi tawfiiq. Waxaan kuu rajaynaa in aad wax badan ka faa'iiday warbixintan. Intaas waxaa ku eg barnaamijkeennii. Tan iyo muuqaalka xiga, sidaas iyo nabadgelyo.